السلام الله عليكم كلنتي وعما وناكسن مر لباد يا مر سدحاد يا مر أفراد وحن صاهري أبوكات أدبوكات لوير مهد أي سورقل نغطي مر لباد ما دام عدو فرد بدن مدة صومالي لا هيك صوت دري lawyer nimana sheegto qof aanan lawyer ahayn inuu iska yiraahdo lawyer baan ahay Soomaali baan rabaa inaan dacwad ka gudbiyo anigoo Ethiopian ah arintaas waxay nala noqotay arin yaab iyo ama kaag ah insha Allah ta'ala soo dhawaada وأنا أود الصومالي قربتها برنامج كان إلى جارسيان شعب الصوماليين وناقي جلمال والبيجوغان كدول مقرنهان دتكي كبتحنا وعلى جيا باب ما أنت اللي تفصلنا إيه ستة بيج كلا جول مقرن وقت كان حاضر كأه يمد يرسله مركا إن شاء الله تعالى وحرب أود الصوماليات إن maanta halkan saddex qodob oo muhiim ah inaan uga hadalno dani oo sheegay mar kale inuu yahay murashax madaxweynaha Soomaaliya oo xisbi cusub ku dhawaaqay waa adduun gadoon sidoo kale waxa jiro ninka la yiraahdo ii sheeg adiga ninka la yiraahdo ra'iisul wasaarihi awoodiisii hoos loo dhimay oo wali ismoodo inuu doorasho shaqo ku leeyahay arrimahaas arrimo lamid ah ayaan qaadan dhigi doonaa aniga iyo saaxiibkaygii Abukaat Mahad gaarsi wada Soomaaliya share garay barnaamijka meel walba oo bini aadam Facebook leh oo hadduu Ilaahay ku roon yahay oo maanta dambaalka laga gaarsiin doono inaad gaarsiisaan baa loo baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqana waafajiyo ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله تعالى إن ما أنت من لقصو بدباريي دقالدي سلسلن كي يوحي كهر انت كهر يسيبا وحوتكو أها لوق قناني يلوق جالو قدحيي إثيوبيا سيتيزن إنو ما أنت يراهدو waxaan rabaa dawladda Soomaaliya inaan dacwad ka gudbiyo waxaan la yaabanahay Ethiopian Australia qaxooti ku ahaa taksiila ahaa inuu maantayto arrimaha ummadda Soomaaliyeed soo faragashto waa wax yaani muxuu ahaa ay nala noqotay mucjizooyin ama kaag siyaad bar Allah u naxariistan leenahay waxa noocan oo kala ah waxa soo badbaadiyay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo yiri waa abtigay ninku dhalasho ahaan deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa kilalka shanaad waa dadkii in muddo gumaysiga ku noolaa way waa Abdi Ilay naadeerkiisi way Abdi Ilay oo waqtigan haadirka ah gabeeto u haysto samaystay hadda kor jeelogaadeeniya gabdhaha Soomaaliyeed naasaa ku guri jiray ayaa adeer u ah marka insha Allah ta'ala markuu hore jeelka Abdi Ilay ku xiran oo waqtigan haadirka Ethiopia ay xabsi ku jiraayeen waxa fiinaan lahayd hada kolba hadii ICJ wax geynayo ama laga aqbalayo inuu Abdi Ilay u dacwoodo ay ahayd waxaan rabaa inaan si sharaf leh karaamo leh xurmad leh ku soo dhaweeyo mikrofoonka Abukaat Mahad oo runtii hada qofka يعني وحاول قف والبو صوماليات أقومت إلهي وسيء إن لو احترامه حرم ولايهاي Abukaat Mahad ديغانهان وحو كي من وقت كان حاضر كسياسة تمبري ونولا ودنك مريكنك سلوك Abukaat Mahad ومرشح اللبان كرسي هوب 007 Abukaat ومد الصوماليات أباهن hub 007 ayuu ku socdaa inaad hadduu Ilaahay ku roon yahay aad ogaataan baa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed hiilo ugu baahan yahay waa qof aqoontiisii iyo cilmigiisii aan u baahannahay asagoo da'yar oo haddana PhD holder
ورمتي ونمعت إلهي سيئي واي مرك إن شاء الله تعالى أبو كاتها يا رب أنا كسر دويون وقبع برنامجك أبو كات السر دوو صومالي دعوت بالغ قد بيي قفا صومالي ودلانين أيات دعوت قد بيي إثيوبيا سيتيزنا يوسف لرادو نيجا صديقة أقول بنتات أرماها يعني ماشي طريقة أمري أو خلدن محكمة هيك وحلالي كرا مركي ودن كدلك قديسي محكمتها كيالان مركي أي عدالة دي لغوايو أيا هيك لهذه كرا مركوانين لف التوبين كوهايو ما دولة China مركي وحسميسو أنا عن Chinese أهين صح دولة China كم دعوين كري هدي وحسميسو because I'm not Chinese. Aha, okay. Ethiopian. Ethiopian. Period. كسر شعب الصوماليين إن شاء الله تعالى شرقري. وحي شيرنا وأنت هسه كلامنا شهدان مرورا صومالي شكتا عدو الشفق وبجرو كسر محمد سليمان تبع الله كون حريص. هذه كان يسوينا أنا. هيك كيس كبوا حريابو. شين شامبو مالي له. شايل مدقيري. صح. So therefore I don't have no jurisdiction واحد له معناها ما بهايستو بدولة China إن عنده وحاسة بس دتك أو كوسة بس هذا اللي ما اللي فوريا نطاي ما بيهيب شيء جاي ما بتيجي كون يسجل بقول سديت الإشانتيا أون لفل أساسي وهيكو هاي دولة إثيوبيا كل دقنا حرنا كرمنا برلمان كي كجيران هذا أيها الإسجاد جوسو برلمان كهجستا صح أيوه أديكو إنا دهيد معها وحرب حرنمو هذا أنا برلمان كإنا فريسة ما شارك راي كورم كله كورم في بوحية سوني كان أسأل شخصي عن ميلها وحكي ربع إنه كإعلامية أو كإفتيمية عن شيءنا لكن أنا لفات nothing to do نكان وأنا سومالي دجناجري أو ضدكي مقع سومالي وتي إثيوبيان كها محمد سياد بري الله أنا حريستو برمدي أفضل بحراق وكين وقت نكبر ماما مال بكاسو كلا محمد سليمان تبع 5 دقيقة شهدان مرورة ألعبتها صوص 6 بقولي حقا مريس بوحي كورم بوحية كورم بوحي قرمت قرنكي وينابا التليفون كوا شيت Damarora, Somali Shekta. Who's up? كدوديهن أنا سدح عن كهذا لا سدح محمد سليمان أنا وصل كدوديهن تضبط النيدي يا هيستان القادم معناه ولا وقعدت كان إني جيران شهدان مرورة شو عدو بشوفكوا وجرونا أورجن فير أورجن يبتري معك تقانا وحس أنت كجرت النيم والبابا سدح قلها كشير قريب سدح قلها هروه كشير قريب سدح كشير قريب كرم كهلا حلو كرم كسدح قفا كهد سدح بقولان كهد له بابا نفتح بابا حسن كوسع مالي شيكتا دقا حلالا كو دقايس او شارقرايس نافسية أبو كات all right أبو كات أيانا لجوغ أبو كات مهر all right
شهر قراي وقاسم من الصوماليات دور قفوت كدب مركان دور قفوت aan waraystay research aan sameeyay and meesheedana waa soo post gareeyay and saaxiibkeena عسينجليش واخر تمركوره waxaa soo post gareeyay yar Yusuf la yiraahdo wuxuu yiri Melbourne-based Somali Diaspora Lawyers Association has filed a lawsuit against Somali government and ICC in Hague. Okay. معناها ninkan ayaa wuxuu yiri nin Melbourne degan ayaa Somali government ayuu rabaa inuu maxaa la dhahaa Hague. All right. Somali government Hague laakiin Somali miyaa isaga ma soo meeshin kareen jawaabteedii Twitter-ka ahayd waxay ahayd waa tanaa Soomaaliday waa taasaa the most important case oo ninkan uu haysto waxaa waaye to start with his cousin aan dhahay horta case-ka ninkan uu haysta waxay tahay cousinkiisa Cabdi Ilay inuu ka bilaabaa Allahu akbar Hague inuu Cabdi Ilay cousinkiisii in adeerkiisii uu ka bilaabaa and a Tigray terror regime aan dhahay moreover secondly waxaan dhahay ninkan is not a Somali nor has a jurisdiction wax la dhaho Somali maba ahaba xaq buu ma laha micnaha ma laha uu kusoo interfere gareeyo Soomaaliya siyaasadeeda iyo afaaraheedaba and 1985 I think only left markii la aas-aasay I think 85 84 waxay ahayd ma aqaan adinka ii fiirin doontaan ayaa mandatekeeda wuxuu ku qoran yahay inaysan Soomaaliya shaqo ku lahayn orodkooda ma ahayn waa ka soo go-aynaa Soomaaliya ku soo darsameynaa orodkooda wuxuu ahaa waxaan rabnaa inaan aftina loo sameeyaa inkastoo badana ay ku dhaceen in 19 something-kii nin wadaad ahaa oo Soomaali galbeed saan ka tirsanaa Sheekh Ibrahim Dheere la dhihi jiray Seattle Washington joogi jiray Minneapolis na la joogi jiray yaa waxay ku eedeeyeen Male Zenawi yaa la heshiisay waxaad aqoonsatay baarlamaanka Ethiopia Ibrahim wuxuu sameeyay I don't know heshiiskiisa dantiisa wuxuu ka arkay I don't know I can careless shaqadeeda ma aha booc mi igu yaala meesha laakiin Soomaalinima oo la socday in dad Soomaaliya asal ku aftirsaday inay degan yihiin meeshana qabiil kaliya ma degan society dhan oo Soomaaliya ah Sheekh Ibrahim Dheere waxay yiraahdeen niyo waxa la heshiisay Male Zenawi baad wax la sameysay daraad markii regime-kii Tigray-ga baxay oo ormadii qaadatay meesha waxay bilaabeen inay u kala dhuntaan regime-kii markaas jiray ayagoo ku baryootamaya xisbi nagu dara xisbi baarlamaanka aan soo fadhiisano yaa Ethiopiana nahay waa idin baryeena xisbi nagu dara oo in la faana la dhahaa Ethiopiana nahay xisbi nagu dara baarlamaanka naga furay iridiis Sheekh Ibrahim Dheere waa la fadhiistay tuugi Male Zenawi ayaa wuxuu dhaani dan mi ugu jirto inaa maanta oo dhan orda dadna ma haysto wax ii dagaalan ma haysto wax maanta oo dhan aniga iga daba shaqeeyo aniga lu gooyan haystaayo dhaa markaan taa ka qaado aan masaajid tagbo masaajid kasto aan tago waa la soo sheegay Male Zenawi uu soo wacay Sheekh Ibrahim Dheere maanta waxa ku tukatay cisho masaajidkaas xagga ka cashaysa muufa ka cuntay waa i wareeriyo dhaa marka sulh khair wax buu sameeyay waa nabada meesha ku joogayo dhaariga Soomaali galbeed waxa soo kamid ah nimanka waa nimankii dhahay ma rabno mandate-ka Ethiopia iyo ma rabno
inaan Ethiopia ka mid noqon dadka soo wacay walaalayaal يعني كان إثيوبيا وكان سوا عين إثيوبيا وكوين ولا إثيوبيا تسفد يونس الله صاحبك واي ما كقلب Johannes صاحب ولا كمان هاي سنة وش boy de boy عقود هاي صاحب أوكي and marka waxa uu diiday ninkan marka hore inuu dadkiisa wax la qaybsado markii aabi yimaaday waxa la horta ciidanka dhan ma soo gali karaan meesha baryotan hogaankii markaas jiray way isdagaaleen waa la kala dhuntay aabiyaa loo dhuntay mid intuu kasoo gal gadaal kasoo gal dooro kale wareer waxay ku dhamaatay dad soo dhintay oo soo shaqeeyay ee daacad ka ahayd bahasha waa ku jirta ee aad uga go'need inay wax gaaraan waa ninkan Mustafa Cagjar la dhahayo iyo inta isaga ku aftirsan daacad ka ahayd Mustafa Cagjar iyo inta isaga ku aftirsato هل كان كداعي daacad ka الله أكبر oo 99.9 wixii naftooda ku waayay iyo maalkooda Mustafa Cagjar iyo inta ku aftirsatay ahay inta kale lugooyo gadaal ka soo gal xagga ka soo wareegso waxaas ahay dadkii meesha ku jira xisbiyada marka biyo dhacaygu wuxuu yahay ninkii baryoodsamay ee xisbiga Ethiopia lagu daro Ethiopia mandate and constitution waa idin baryaay let me participate dhahaye I want to participate inuu dhaho abi Dr. Abi's maxallaha and dawladdiisa administration ninkii baryootamay baryo ee lahaa dad baa liiga lahay okay shabeel baa waxaa la yiri shabeelow carruurtaadi geel baa ku tuntay markaasuu yiri geel kuma tulman ari baa ku tuntay cawl iyo biciid dadkaagi waxaa jeel Ethiopian u samaystay iyo jeel reer hebel u samaystay ina adeerka oo naasaha dadka goonay xaniinyaha koronto uga qabanaya massacre invade killed dadkii oo dhan heinous crime ku sameeyay ina adeerka oo inta Soomaali ku aftirsato magaca sheegato ee lagu dilay meeshaas oo particular ninka dilayna ay isku reeb yihiin kan laga dilayna uu asaga yahay oo xaq u leeyahay uu yiri Ethiopian baa ahay uu ku yiri ee dadka meesha lagu dilayna Ethiopian waaye jabadaas waxa waaye the most and first case ninkan u sahlan inuu Cabdi Ilay case ICJ ka xareeyo inta kale waxaan aqaanaa qabiili uqdad dad toosay dawlad hore u socotay dawlad kala kacsatay inuu ku soo waxisna isagoo waxba qaadi karin oo taksiile iska ahaa and Australian Bar Association waa baaray kuma jiro ma qaan odayga inuu waraaqa qaado uu turjumaad yahay uu saas lawyer inuu istiyo ضم بيسون هذا كون سجال بالوقت دولدي وحي كان السير سوماليا آد مالف في عنا مروة مالف في عنا أوكي كوسو شير قريب برامج هو حساسي هو مرجع نمان أستراليا دجنوا عن تويتر كذا كانوا كهلا هنا وعارك واحد هن ميلبورن أنا دجنوا ده ويلش كم ده نكان ما خان بل وحن جعلنا هنا ليستي لوير هنا برتان جعلوا هير نكان ليستي كم جرب mana ku jiro dhaay Melbourne Bar Association wax la dhaho dadka attorneys ka ay waxaas through the channels of legal careers dadka yaqaano ay yaqaan marka maxay tahay marka ma gadaal baa laga bush gareeyaa ma isaga jecel inuu ku soo caan baxo ma tii xisbigiisa uu ku soo caan bixi waayo failure ka noqday أما كشمايو كرسي كربا ما something like that ما دقنا بسمع ما دقنا ما نقول نقان تضواتني اللي حدي محمد سياد بري أبارك الدبادير وكينا إنتو كينا وحبال الله بري إحسانا لو سميه tax جينا وحلو بري art taxation لعكتنا لقى جرا وحلو بري إرتادنا مع عيدا ذي كان بنا نقن ما دافو نقن كان ما دافو مرنا هنا أنت كسوبع مرة يبقى نقن مركز تاس وتاس marka heerkiisa aqooneed iyo wuxuu sameyn karo iyo waxa la banaan iyo waxa uu yahay
horta waxa ma sameyn karo odaga aan baxo wada wax dhaho aan xurwa walaalkeena oo ku soo caanbaxo dawladdan waa anigoo dawladda China u sheegay oo dhahay madaxweynaha China waxaan geenayaa Hague baan geenayaa just because dadkiisu laayay or maybe anigoo Hitler u sheegay Hitler oo maxaa la dhahay Hitlerow waxaan ku geenayaa maxkamad because aniga Yahuud mi I'm not Yahuud Holocaust Hitler wuxuu sameeyay Holocaust inay jirto anima ma aaminsan I don't know ma joogin evidence badan oo la tirtiray jirto niman badan oo cadaan oo la dilay markay dheer meeshan gas enough ba ma ku jirin marka taas long story ba odagaan maskiinka ah inuu isu soo saaro jeceliyo inuu soo caanbaxo aqoonteedana ma leh kiiskana ma haysto meel uu wax ka doonana ma leh meel uu wax ka samayn karana ma leh dalkana uma dhalan dadkana uma dhalan Soomaaliya degan dad Soomaaliya degan uma dhalan hal tuulo kuma laha odagaan hal tuulo for God's sake Axmedow maanta imaada ay xisaab hal tuulo uu degan yahay meesha uu ka degan yahay sheeg odagaan meelahaas iyo wardheer ma ahane doola iyo meelahaas hadacweeyo hartiga doola degan hadacweeyo hadhow geela iga dhacay laakiin Soomaaliya waxba kuma laha walaalkii xisbigi uu isaga ka tirsanaa uu intaas ka faanayay uu lahaa dawladda Ethiopia mandate-keedii constitution-keeda kuma darsanayno aabi markuu imaaday wuxuu ku gaartay inuu dhaho war Ethiopian laga dhigo war aan soo tartamo war Ethiopian laga dhigo war halii aqoonsado in Ethiopian ahay for maalintu aabi yimid ilaa imaanta dhaxdeedu xisbi soo aan noqonaynaa ku haya micnaheedu wuxuu yahay Ethiopia constitution ku dhaaranayna war Ethiopian arabna because marka hore waxay lahaayeen anaga mandate waa go'eena iyo waa xismeena waxa la yiraahdaa go'diine Soomaalida meesha degan dhan ma haysatiin may okay maanta odagaas wuxuu ka soo daaray aabi markuu yimid Ethiopian haleega dhigo oo xisbiga Ethiopia haleegu daro uu ka soo daaray then uu iska soo baxay see ku soo caanbaxdaa taxigi Melbourne waa ka hor yimid Melbourne intee la aadaa Victoria iyo meelahaas lagu wareegsanaa iyo maxaa la meeshii yareedo kackac iyo sambuus lagu gadaa meel la aaday mar therefore ninkan jurisdiction ma laha aqoon uma laha muwaadin ma ah kow muwaadin ma aha Soomaaliyeed laba aqoon ma u laha saddex degaan kuma laha waa maxaa la dhahaa nin Vietnam degan anoo Vietnam dhahay waa Vietnam dawladda Vietnam ma dacweynaya oo dadkeeda ayay wax ka sameysay Vietnam maxay jiraan ma Vietnam marka sheekada odagaan ina caan noqdaan rabaa oo in la faam ituurtay shaqala aana ahay ina caan noqdaan rabaa Melbourne Bar Association waxa la dhaho guddiga advocateyaasha oo qareenada Melbourne kuma jiro aad iyo aad u wanaagsan tahay horta war advocaate mahad baa dhameeyay odigan Yusuf la baxay 80 jirka ah wax badan abaal aan u galnay Soomaaliya ku haynay luuq jeelo iyo luuq ganaane ayaan runtii as evacuation ahaan dawladdii kacaankii barakaysanaa ilaahay ha u naxariista jaal Maxamed Siyaad baray ku hayay uu yiri war abtagay waxaana waa mudiraan u sheego oo ana la fadad maqashid waa qalb dhagax oo kale what is the meaning of OLF OLF diinteedii iyo dhaqankeedii iyo horumarkeedii iyo mujaahidkeedii waa qalb dhagax oo kale ummadda Soomaaliyeed wuxuu ugu sheekeeyay inuu yahay nin OLF mujaahid ah laakiin wuxuu ahaa oo idinkana aad gadaal aad ka ogaateen oo aad yaqiinsateen jaajuus Tigray soo dirsaday buu ahaa oo habeen iyo maalin la casheyn jiray la quraan jiray wixii gabre u diro ayuu asagana geeskiisii arrimihii gabre Soomaali ka waday ayuu ka waday haddaba anaka baaris dheer baan galnay ka gudmud qaran ahaan ka radio shacab ahaan waxaan xiriir la sameynay
jaalidaha Soomaaliyeed Melbourne Canberra ku nool ee waddanka Australia odigan sagaashameeyadii ilaa iyo sanadka 2011 taxi driver buu ahaa laysankan waxaa looga qaaday baa la yidhi kadib markii cudur indhaha ku dhacay aragtidiisii ay daciif noqotay arki waayay baabuurta iyo yani muxuu ahaa seedadka tagaasooyinka iyo baabuurta waaweyn meelaha la marsay ama baarkimadii uu sixi waayey ayaa dowladda Australia laysankii iyo sharcigii taxiga drivernimadii lagala noqday waxay isku group ahaayeen asaga iyo Farole Abraham Farole aad bay isu yaqaanaan waana saaxiibo waa isla soo jabeen waana isku da'wa sidaas daraadeed waa Ethiopian la kordhaway la hoos dhaway la goday waay Soomaali wax shaqo ku leeyahay yiraahteen malahan laakiin kuwa aniga iga dhashay oo reer koonfur galbeed ah oo meelay wax marsiyaan ay waayeen oo dameer dhaan raacday noqday baan rabaa aniga u daleeyahay inaan halkaa ku karbaasho oo Alibab mid la yiraahdo qaraabanahay oo beelweynta geladi u dhashay iyo kuwa kale London ka yimid oo aniga ka heeb ahaan ama deegaan ahaan koonfur galbeed ka soo jeeday ayaa waxay meesha la tageen dad Soomaaliyeed oo qaraxyo lagu dilay oo haddana u dooday qofkii qaraxa ku dilay ama dadkaas laayay oo markii gacanta dawladda ay ku dhigtay ka xun ma waxay raali ka yihiin soo ceeb ma ahan fadeexad ma ahan ICJ in la geeyo case nin terror ah cadaalad u raadi la yiraahdo lagu soo qabtay nin terrorism lagu soo qabtay umad soo laayay dhiigii ku qabaystay in maxkamadii dambiye dagaalka adduunka la geeyo yani muxuu ahaa argagixiso qiil u raadi ICJ in la yiraahdo lala istaago soo wax lagu xirma miyaysan ahayn soo dhaw orto jaale magaciisa maxaa adag Alibab Yusuf Duq Yusuf sheekadiisa halkaas ay ku xiran tahay oo wax weyn ma aha oo waqti aan gelino odaygiina is xoreey rabaa oo is xoreey oon lafna waxaan aqaanaa sidaa hore u sheegay niman ay dhab ka ahayd sida ninkaas Mustafa Agjar qaraabadiis aan ogahay inta kale gabdheen ha amuuleystaan no abile marka inta kalena waxay iska ahayd jawaasiis الجيفية بنان اوكي مدني سعيد دني قرح ايا وحو يري دورشان قبنا يا مشرح نواهي هدي وحي ماذا بران كينا يا نندي جري دني وحو ليه هدي وحي ماذا سعر بركة كبحيسان orta marka hore dani qurux baa daaranaynaa oo dhageysanayna kadibna waxaan ka hadlaynaa dani qurux dadku uu rabo inuu qayb ka ahaado in maanta dadka reer Puntland subxaanallah loo astaynayo nidaam cusub asteenayo ku dhisan oo ah inay doorasho u dareeraan iyagoo loo xadidayo xataa sida ay campaign u sameynayaan iyo maalmaha ay gelayaan waa loo xadidayo doorasho u dareereysaan waana loo xadidayaa macnaha waa loo sheegayaa aniga xataa haddii la ii xadido waxba kama qawna dani wuxuu dhahay xisbiyaal baa tartamaya therefore xisbiyaashaas saddex xisbi baa ka soo baxayso dha afkiisu ku sheegaya saddex inay soo baxayso muxuu ku ogaaday okay aan dhahnaba saddex xisbiya laga rabaa saddex xisbi soo baxayso wuu ogyahay marka dani indirect doorasho dadbanan qabana oo ninkan raba ha la ii soo saaro iyo xisbiyaan samaysana nin fiyo miyaa dani la taliyaashiisa ma fiyo yihiin akhriska maa ku yar habka doorashooyinka maa ku yar ma cabsanayaana masaakiinta dadkii baa sicir barar u dhintoo lugaha ka barbaranayo gaajo u dhintay wuxuu ku leeyahay waa loo asteynayaa waa loo sameynaya dhegeysta hadalkiisa waa badan wey oo anigoo madaxweynihii dalka
markaa soo jeedin karaa maalin kale ku samayn karta haddaad samaysin doona subxaan allah wuxuu dhahay anigoo madaxweyne xataa waxaa lileeyahay maalin hebel le soo bixi kartaa doorashadu soo wuxuu diidayaa ummadda inay isku soo baxdo oo xisbiyaal badan soo baxaan oo isagii laga codbadiyo oo wuxuu dabdaboolaayay iyo wuxuu qarqarinayay ay cirka lagu soo qashto ka cabsanaya marka wuxuu yidhi waxbuu sameeyey isaga wuxuuna iclaamiyey markaan inuu madaxweyne yahayna wuu iclaaminayaa xisbiyaalna waa samaysanaynaa uu leeyahay waa candidate oo haddana dowlad goboleed ahoo fadhiyo oo raba dadki inuu soo xusho bal fiiriya haddii adiga aad tahay musharax horta maba noqon kartidba madaxweyne puntland number 1 haddii doorasho oo dadban ay tahayna horta xisbi maba samaysan kar doorasho dadban waabe sanduuqaa lagu ridooyaa xildhibaan sanduuq ku ridooya xisbigaaga muxuu taray adig aniga xisbigayga adi xisbigaaga muxuu taray wax ma samayn karaan ma doodi ma vood garayn karaan baarlamaan ma fadhino marka xisbigaaga muxuu taraa iyo xisbigayga haddii doorasho dadban ay tahay oo xildhibaanada federaal marka wuxuu rabaa inuu xildhibaanada gacantiisa kusoo mirto uu dhaho waxbaa jiro hadalkiisa aad dhegeysan waa xisbi jini waxaan ognahay waa xisbi jini dad baa dhegeysan subxaan allah si hufan oo sharafna ku tartanno puntland dhan usoo hooyata waa qoorsagaalada dadka uu ku hayo wuxuu ku leeyahay waa guul ummadda lugooyadu ku hayo dhuuntu ku hayo wuxuu ku leeyahay waa guul maanta haddaan ku dhaho bal sariirtaan madaxa ku qaada ilaa ay waxaa geystaa ceelgaab waxaan ku leeyahay waa guul noo soo hooyata nin xoog badan oo xamaali haddaan helay oo ilaa sariirta madaxa igu qaada defo nin waalan miya ma laga cabsada dadkii dhibaato sicir barar cagabarar gaajo dhunqabasho ku dilay markaas wuxuu leeyahay waxaan u astaynaynaa inaa war sharciga adduunka doorashooyinka iyo siyaasadda habaraaca nidaamka doorashooyinka kuma jirto waa inaad xisbi leedahay oo xisbiyaashii isku yimaadaan oo xisbi walba tartamaa oo dadkii shacabka loo bandhigaa shacabkii xisbiyaasha ay shacabka ka midka yihiin in la doortaa 1 man 1 vote baa loo yaqaan aysan ahayn doorasho dadban waaye xildhibaanada markaas joogto ee nool ee markaas active-ka ah ee wax dooran karta ee sanduuqa wax ku sugi karto inaad laaluushtaa waa iyaga le waa bis xisbigaaga ma aha waa xildhibaan jiroo lasoo dooro ama adi dooro ama madaxweynaha hore hasoo hore u doorto hore oogu imow ma dhihi kartid xisbiyaan sameynaya xisbigayga maalin buu khudbeynaya aniga xataa haddii la yidhaahdo guriga iska joog waa loo asteegay waa xisbi hufan muxuu kuu tarayaa xisbi waa beentiisa wuxuu rabaa dad uu soo xushto waxaa qalad ah isagoo candidate ah oo musharax ah inuu puntland madaxweyne kasii noqdaa uu sii doorta tii shalay ka dhacday jamaal gudnimadii garowga ka dhacday jamaal markuu tagay waa la ogaa hadaladiisana wuxuu kusoo qaatay dad baa iska imaanaya waddankan iyo dad baa iska soo imaanaya dad mar hore noogu dambeysa goor hore iska imaanaya jamaal buu ka cabsanayaa kacdoonuu ka cabsanayaa dadkii inay kacaanay ka cabsanayaa dadkii dhuucnaha la haystaa ma qadeeyaan waa dhibtoodeen dadkii puntland shacabkii puntland ee dimuqraadiyada lahaa ayuu ka cabsanayaa ummaddiibuu oomiyey ummaddiibuu maxaa la xebeebiyey ummaddiibuu dhiigga ka dhuuqday ummaddiibuu gaajo ku dilay cagabarar ku dilay sicir barar ku dilay madax barar ku dilay caroor barar ku dilay logo barar ku dilay timo barar xataa ku dilay ku soco horta xalay fariin baan u diray reer puntland ihaana ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loqonta u gelishay muddo hadda laga joogo 6 sano ka hor ayaan la hadlay dad aad iyo aad u nasiib daran waayo dadka shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan puntland way nasiib daran yihiin waa dad xaqiiqdii markaad fiirisid waxaan maqlaa puntland dad xadaarad leh waayo war dad yani dadkan dad oo runtii gacan galay waayo waxba ma samayn karaan waxaa la gatay dekedoodii baa korkooda lagu gatay oo shirkada maafi ah ayaa laga heshiiyey oo saari som iyo wax bilaayo ah oo dahabkii macdantii baa laga baabi'iyey over lagaga dhigay waa dad yani muxuu ahaa 80 jirkoodii gaajo magaalada villa garow korkeeda ugu dhimanayo way war doolarka magaalada muqdisho 1 milyan iyo 300 2 milyan iyo 300 kun oo shilinka Soomaaliga ayuu ka joogaa 5 milyan bay markan waqtigan xaadirka 5 milyan buu ka joogaa garow war ummadan xagee laga haystaa
aniga waxaan la hadlay sida qolooyinkan ii sheeg adiga waxaan la hadlay sida leelkasaan waan la hadlay reer dadkan goboladan sanaag degan ama baran degan ama dhaxar degan ayagoo dhammaaday oo baaba-ay oo sakaraatulmowdku saaran ayaa jamaal baa falaamo ku xiray jamaal baa soo nooleeyay jamaal xaqiiqdii tolkiisii oo baaba-ay oo la dulmiyey oo la laayay cabsida uu qaaday jamaal markuu degay dani marka sida jamaal dadkiisii u nooleeyay waxaan ka rabaa daayimarka dhan u buuxiyey inay hadduu ilaahay kuu roon yahay qadiyadda dhulbahante axmed karaashow qadiyadda dhulbahante nolol bay u baahan tahay qadiyadda leelkase nolol bay u baahan tahay qadiyadda oortablaha nolol buu u baahan yahay reer mudug tale u baahan yahin reer biciidyahan tale u baahan yihiin waa inay murashaxiintiinii xaniyahooda ay fuulaan deegaanadooda ay tagaan dan inaysan ka amar qaadinin waa handicab oo jaarta ooman baan u bixinay سعيد عبد الله دانيال باليرادا ما هن سعيد عبد الله داني معن وديgan دانيال باليرادا دوم بلا soo qaariyeysay halkaas uu Zanzibar uu ka yimid inay qariyaan bay rabaan suuragal ma waa sheegayna anaka daanay ku mid qaran intaas waxa way dani arintiisa kala yahay aan u soo laabto kiiskan oo hadduu ilaahay ku rooyay nimankan been abuurka meesha ku wado waa isu imaanayaan idinka mar dhow insha Allah ICJ horteeda haddiiba ICJ argagixiso ay cadaalad u raadinayso hadda argagixiso ninkii dhibaataysay waa aniga ka gurmud qaran ahaan oo 9 boqol ku dhuftay waa aniga heerkaas inaad gaarsiintiin uma malaynaynin laakiin haddii meesha xaaladdu ay marayso gurmud qaran waa safar ICJ buu soo socdaa meesha ayadaan isugu imaanayna ugu dambeyntii mudane ra'iisul wasaare Roble maantayto meel aan asiga loogu yeerin meel aan laga azumin ama aadan qof aadan u tirsanen hadda adiga isku tirsan dibkada leedahay maxaad ka leedahay maantayto guddiga doorashooyinka iyo amisom iyo taliyihii guud booliska Soomaaliya buu la kulmay yaa u dirsaday ku soco Roble Bagamondo horta waxyaalo badan iskaga qaldan waxaa ka mid ah ani ma aqaan qofka la taliyo laakiin waa u jeednaa qofka la taliyo Roble siduu u sii waday ayuu wuxuu u geeyey awoodii doorashooyinka faraha wuxuu ka saaray dowlad goboleedyada boqolkiiba 40 asoo isdhahayo ku xumee arrintii madaxweynaha iyo asagii sheekadiisana Roble boqolkiiba 40 siisay Allah anna boqolkiiba 60 aan u daray Allah shaqadaada waa dhamaatay Allah guddiga doorashooyinka shaqo kuma leeyihiin iska joog meesha taliya ciidanka booliiska waa la shiri kartaa igu sawir waa dhici kartaa laakiin Roble boqolkiiba 40 sharciga doorashooyinka waxay ahayd odayaasha duubka ah iyaga federal waay iyaga soo doorto oo UN ka diiwaan geliyay 20 sano ka hor 21 sano ka hor UN ka diiwaan geliyay duubkaaga ugaaskaaga islaamkaaga suldaankaaga hadduu ku jiro 134 135 waxay tahay UN ka isaga unba awood u leh inuu waxay hadda wuxuu rabay inuu waxaas dhan dhangalaaso ku dhufto because dad badan ay isku xumaayeen oo ku jiro wuu ogaa dadkaas inay laalaad iyo tuuganimo ka siiyeen markaas wuxuu dhahay idinkaa nii soo baasa dowlad goboleedyada markaas arrinta xoogaa okay markaa idin soo baaso faraha idinka saara markaa aan ka wada shaqaysano gabadhii wilaayadeeda beenbeen ku dhigtay noqotay aan ka wada shaqaysano keenay saaxiibka aan ka wada shaqaysano uu keenay mideed kalena dowladda federaalka CID da iyo faraha iyo baaraan maxaa gobol u geenay cadaado iyo dhuusamareeb iyo baydhabo iyo kismaayo iyo garbahaare iyo maxaa u geenay hirshabeelle iyo jowhar iyo beledweyne maxaa u geenay fingerprinting iyo qofka in la baaro the federal government qaybteeda nabad sugidda waxay joogtaa magaalada Muqdisho xarumihii weynaa magaalada Muqdisho jooga wuxuu yiri qolo walba waxay samaysan kartaa federaalka waxay samaysan kartaa farahoodii iyo odayaashoodii iyo duubkoodii waxay samaysan karaan tuuladoodii iyo magaaladoodii wuxuu islahaa dowladda ku xumee waa loo sheegay no dani
xariif waay wuu ka saxiixday bal ii saxiix oo dhahay intaas walaalo wuu u saxiixay wuu u saxiixay 40% ayaa hore markii waxaan dhacayna madaxweynaha wuxuu dhahay wax aan September 17 ahayn iyo January 27 ayaad waxaa ku wareejisay dadkii dowlad goboleedyada odayaasha xoogooda waa ka bixisay because this May 27 May 25 sorry May 27 kan wuxuu ahaa la yiri doorasho 4.5 therefore waa inay soo xulaan maxaa la dhahaa odayaashoodii oday Kismaayo lagu samaystay oday Baraawo lagu samaystay oday Beydhabo lagu samaystay oday Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo lagu samaystay iyo Boosaaso wax ma tara odaygii cidda ahaa ee federal colleges gracena iyo encourageska soo waxay uu ka bootiyay wuxuu rabay in xaafadaha nin walba oday soo qabsado isku sawiro asaahe maxaa garataay asaa ku fadhiya hadda 6% siisay waa si qaldan ah xaq ma ahayn inaad dowlad goboleedyada faraha ka saartaa ilaahay amarkiisa ilaahay aqaba filaga dilaa madaxweynaha wuxuu dhahay 60 ana ulaanjiyay maxaa loo umiye keen adiga maxaa haysataa 60 ana ulaanjiyay 40 maano 60 ana guddiga ayaa hor ugu tagay guddiga waxay dhahay jaalle shaqadeena anaga wadano daniyo u wacay wuxuu dhahay doorashadii garoow shirka ku qabatay waa iga bixisay saaxiib baa ay saxday Allah shaqo ku marid gacmaha ka xiran xagga iska fadhiiso doorashadii inkastoo la kansalayo laakiin dani wuxuu ku yiri Roble fiiri dani wuu u laanjiyay Roble dani u laanjiyay uu dhahay awood adan ku soo wareejina laakiin dani irduhu xirtay shirki garoow hadda ka jiro ilaahay amarkiisa uu kansalmay laakiin dani wuxuu dhahay Roble ma soo dhawaanaysid saaxiib iska soco waxaan anaga shaqo leh dara dani markuu hadlaayna fiiri inuu double standard yahay iblis yahay hypocrisy uu yahay shaytaan inuu yahay wuxuu dhahay doorashada waxaanu u ogolnahay inuu ka soo qayb galaa oo awood ku yeeshaa ra'iisul wasaare shalay ra'iisul wasaaruhu yiri ka xirtay markii shirki garoowe baa linkiski oo kulankii garoowe oo lafta gareen kulli garoowe soo lagu balansaneen si filaabi bareys ku ka siibtay Roble wuxuu yiri iska soco war ninkan Roble wax ma fahmamiya war ninkan la gooyay eber ooga dhigeen waa ku shaqaystaan waa la gooyaan dhaxu soo fadhiista war niyo ninkan ma fahmayo miya waxay yiraahdeen Roble ma ka soo qayb galayso yiri dani because shaqo kuma leh maanta markii shirka la kansalay Roble wuxuu iska dhigay nimankii hawiye ee saaxiibadiisa ahaa isku xumeynina ra'iisul wasaaraha qaranka waxaanu aaminsanahay inuu waa shaytaan waa iblis mudabdab waa hypocrisy waa munafiq bes hoosna $150,000 ayuu saas uga soo bixinaa hadda cabdi qaybdiid iyo waxa u tagay odaygii la dhigi jiray muxuu ahaa kii gudoomi oo fiqi lacagta inuu soo laanjeenayo ay arkeen waa Puntland aan la hadlaynaa ayagoo sii dhahaya ogaa wala soo laanjeenayo inta soo noqonay marka Roble qasaara loo geystay daniga u sacbinayay bareesku ka siibay dowlad goboleedyada markuu saxiixay ay yiraahdeen iska bax marka waxaan igu sawirtaan Mr Roble shaqo kuma laha doorasho gacmuhu ka xiran yahay waa isku sawiri karaa Amazon xaq uu leeyahay ciidamada booliiska taliyaashu wuu wici karaa oo wuxuu ka wici karaa dardar gelin wax la yiraahdo qodobadiisa ay ka wada hadleen fiiri dardar gelin waa inuu dardar geliya abniga inay ilaaliyaan xaq uu leeyahay inay abniga uu ku marsiyo inay ilaaliyaan ilaa xamar uu jooga doorashada Soomaaliya xamar ka dhacay dardar gelin wax kale oo meeshaas ooga banaan saaxiibkay Roble ma jirto mideeda kale nimankii qodobada soo saaray maxaa la jiray kuwa meelaha ka qeyn jiray magaceedu ma kuwii aqalkaas qoladii oo madowga musharaxiinta muqarrabiintii kuwii waxay soo saareen islaanta yaanyada bakaara ku gadasay ayaga isku mid waa islaanta waa taxi bixiso taxigeeda ay qaataan warqaday soo saareen anaa yaabay ma xisbi dowladda ka mid ahaa dimuqraadiga iyo republikaanka waa niman senators ah astaanta bay qaatay maanta warqaday soo saareen astaanta dowladda lagu qoranta astaanta dowladda ku qoran maanta ma ayaama dhan aan ka hadlaya anaaba waa ku wareeray nin astaan dowlad federal qaatay mucaaradnimadii sheeganaya oo dowlad ma aha xisbi ma aha senator ma aha MPs ma aha city council ma aha intay soo saareen waxay ku leeyihiin
dowladdan ma rabno laakiin roob laan rabnaa in lagu soo wareejiyo doorashada uu wado waryaa tihiin diapers aad tihiin diapers Emirates diapers aad tihiin Emirates diapers and puppets aad tihiin lapdogs warqadda aad qoraysiin iyo awooddiina isma laha wax barta wax aad qori kartiin iyo wax aadan qori karin laba waa waxaad qori kartaa markaad senator tahay markaa wax tahay aad xisbi leedahay oo xisbigaasna uu waddanka ka jiro dimuqraadi ama republican laakiin markaa nin shacaba tahay oo baagamuundo tahay oo lacag lagu siiyo dadka shacabka ah taxigooda lagu siiyo warqad walaalo waxba kuuma tarto walaalo wax baro ummadaha ceebeenin wax barta jurisdictionka awoodda waxaad ku leedihiin aad ka hadli kartiin iyo waxa kala barta kama hadli kartiin in Roble wax loo wadi Roble asaa awooddi iska qaaday asaa dani u saxiixay taas ka hadla Roble dani u saxiixay danina markii shirka garoowa lagu qabanayo Allah حتى زوم روبلي الدنيا يكون جري الدنيا وحير كل ما هضلا روبلو واحد بمتي وكبح هذا إلهي وقدري مركي شركة جرو ولا كنسلي إنه روبلا ده هاي رئيس الوزراء أيام وحن والله هاي إنه وحوريجي وبنتيس والروبلا بنتيس دني وبنتيس مدوق مشروعية تقول يسوع دني إسكالها أو عرب شيء جري ولا على يلا ونكا ويسوع صوم مرتي ده قدها أنا وانيجي حرتي وحبا ما ترتين وحبا ما قبل كرتين طالما هيسين سياسات ما هيسين اسكفا ديستا الشيخ شريف واللي قبحي ونيجو وريري واسكبحي الشيخ شريف انت يقول إلهي الشيخ شريف مانتا population كصومالي half وهيستا ما يقول كلام هذا السؤال half كواي نما كانوا كواي half كحتى نما كانوا كواي إلى سوى السمعة له أيوة تري إبريك كنيجي ثم والله ده سو ده ثم بالله ده واده ومدي واكبر ثم طلع وارواح they are nobody nobody روبل أساك إسكسيبي أود ديسة أو دولة فدرال دولة جوالات كفراح كسارة بحيري أساقو إصلاحها دولة كحمة إلهي وحوق قدري إنه كساقو إسكحمة أو ما أنت أي رهدان دولة جوالات ديدا إنك أمدح بنان أو أضياش هيصنو أو أمدح بنان أنا كونفور قبل شيء أنا قلت وأنا رون هذا صحدي وأنا رون كونفور قبل next week حل دبانك وهرب بلابسة قرقور حدو نقنايا وجب أبوك قلبك عليه أحمد مدوي هدو نول ياي يهدو عاف ما هذا بقى وصار نقندونا هدو عاف ما هذا يهدو نول ياي بقى يهدو الانتم هدو تعبان يهاي إنه حل صارنا ولا هذه أفرتي وقدام بس دي صوت طول وقت قناة إسلامتي كشيك يجا أديجي سو مساكين تأد أو رحلات كأد كجرتو دي أفرتاس مركب صوت طول إسقاي قانا إسقاي وقول ما تروحين معه وحب كمر بنما marka iyana raaciyo dad waxaan waa inaan idin sheego Roble maanta xog yar baa iga soo gaartay xafiiska ra'iisul wasaarihii awoodiisii hoos loo dhigay asagoo maanta ito runtii eedeeyay aad u eedeeyay ilbaab aniga aan leeyahay ama telefoon aniga aan leeyahay oo dambe Cabdiraxmaan Abshakuur iyo Mahad Salaam iyo rag uu tiriyay oo koox ah oo asaga xigaal u ah oo ka tala qaatay جهنم يقولوا ذي بالكوان كوا أنا قلت له أنت قاطع وكوبا بايو إهلاقي وكوان بايبين الباب كي مسوي استاي كرتان المسوي كرتان إسلام متهين ولا المتهين أنا قو شرف له صومالي كقد مي نبضون أياد ويسيري إذا بروسل قبل ما انتهى سمشي مريسا ما قلت صوبته كرامة يوسف عدب ولا جبتي نقطة لا هذي جبت ما كمنتو رئيس الوزراء وحاب بي طول كلا قلي دمبيليال أو مركو هره وسقي السناد وكلوبتي مركز النجاسي دي بلو ولا ضي مركز النوم دي بلو قلي نركي وسكسيبي رئيس الوزراء وقاوم بمانت ميل لو تاجر وقاوم يا حبيبي وكحمة واحد بدن بالك كلمني والله هذلي رئيس الوزراء دربان قبيل كجوج بنا ورفرماجو ومدحويني الشرعي او دلكان الهي وسو ساري بوا دورشو دلك u socda shaqada ahayn baad gashay ka joog wax badan baa la tiri markaas Facebook iga soo amaana lacag cash tarak beejis kale igu soo share gareeyo farmaajan dagaal kula jira waxaasan sameynaya
cirbaan soo duminaya fahad yaasiin baan dagaal kula jira oo ha laga celiyo hawada ha laga celiyo imaarad ha loo adeegsado tii maanta waxay dhashay ra-iisul wasaarihi dhar la-aan maanta wax rasbagtagelay inuu waayo hataa agaasimaha xafiiskiisa yurub laaya kir maxaa tahay awoodada hoosaaba loo dhigay waa sax awoodii dastuuri ahaanba hoosta looga dhigay ani maanta inta uma istaaga hadduu hool soo galo roobla hadduu imaado wuu istaagaysa adiga waqtigan haadirka asan prime minister nimo asan qof bini aadana oo islaamo muslim gaalada ma laga yaabaa inuu istaago laakiin ani wasiir bay maxaa ugu istaaga maxaa ugu fadhiisanaa talana kuma laha wadanka maxaa ugu istaaga maxaa ugu fadhiistaa laakiin asan qof bini aadana hay qof weligay uma istaago gacanta waa taagaan الله يعزك محاك سوق الجبينة أفوكاتو برنامج سوق الجبينة يا رئيس الوزراء ما تروح للشري commanders in police كا Amazon كا زي أو إلاليان دورشة الصومالي لان أو إلاليان تاسنا معنا ماله ولا شركة ومهمة ذكية أيامها ويجي بهالمرة ويقص ور سمايا ويجي قدام بيه كيت فوستر ويقص ور لسمايا وده بل ambassador ذكية فيلا سومالي اللي أسي قد بوان بيه إيمانه يعني بل إيه إما وذا شققوها أيضا علال حواتيه إيماني سي واسكو سوري كيس فوستر وش معناه يا وينات كيت فوستر و ناكت assignment سومالي هايسو أو ambassador ده لغوريجي هذا أو تبارك أسعده conflict سيدي conflict resolution سيدي محل ده وقصة ماله محل ده كلا قايبين iyo maxaa la barakicin ugu sameyn lahayd Soomaaliya kadibna xal ugu heeyay meesha xal u raadsan lahayd oo jaamacadeeda ay ku difaacay CIA-da iyo MI5 ka dadka u qaabilsan adduun weynahaas inay burburiyaan qof ay keenaan qofkiina qof uu ka amar qaataa marka qof senior ah joog jiro oo wadamo badan soo dulbudiyay marka iyada la keenay si ay ugu barataa wax la yiraahdo barakicinta in la barakiciyaa dad la isku diraa qoorta la isku geliyaa because 12 October soo si loo waxeeyaa la iskugu diraa dadkan xitaa 12 October day soo dhow Kenya anaga ma imaan maxkamadda anaga tagnay so therefore xitaa Kenya hadee maxkamadda iyo xitaa badda iyo dhulka hadee iyada leedahay xitaa waxa sharci ah hadaysan imaanin dhowr mar oo loo wacay aysan imaan maxkamadda in anagana loo feergareeyaa mana la siiyo sharciga waa kaas laakiin sharciga gaalada hoos ka wadato ee European ku xaysan yahay Kate Foster waa naagta kaliya ee rabta hadda inuu Soomaaliya barakac kaga dhaco lacagna ku bixiso time-na ku bixiso ballanqaadyo badan $6 oo madam baxidi oo kale $6 ninka uu heesay waay koraa laga soo qaaday millions laga soo qaataa imaaraadka bixiso imaaraadka wuxuu soo waxaysaa dad mar ninka ugu hooseeyo bajaajlaha $6 uu reebana inta kale 10 si Allah leeyahay xusina shan musina adiga waa nin walba qadkiisu goosanaa alaabtii uu sheegayo waa salaad cali jeen corruption ku wuxuu ku dhahay waxa ku helo sax waa laakiin tawadki lootinka wuxuu iyada la furaa habeenkii dhabarka la saaraa lootin waayo dhaalaad tan hadda nabada nolol lagu nacay way maana bangiga ay hortaagan marka corruption ba maasantiin Kate Foster way isku dayaysaa waxyaalo badan inay qalaad sameeyso laakiin waa dhamaatay Somaliland xildhibaanadooda reer waqooyiga waqooyi Somaliland yani waqooyi xildhibaanada waqooyi one day dad isqa qabsada ma isku waxay Shabeella joognaa intaan galmudug ka soo galnay koonfur galbeed ka soo galnay ma dadkan waa dad xadaarad leh one time Allah warkii jaamaca ma haray uu haray u yaqaan wartii hooda eed ma gashay waa dhamaatay qashqashaad ma jirto wuxuu way qaadanayaan 1-2 day waa lagu kala baxay koonfur galbeedna 3 xildhibaan ugu horeyso 10 xildhibaan ay soo tuureen waxa ku xiga dani waxa ku xiga qorqor guudla waxa ku xigo galaba kaaraha waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odaygii miskiinka ahaa ee Etoobiyaanka ahaa ma u laha xaq wadan dadow inuu ISIS xitaa hadduu judge yahay xitaa hadduu Soomaali yahay dacwada Soomaaliya ICJ kama bilaawdo human rights ay ka bilaawataa human rights abuse ay ka bilaawataa international law oo human rights ka waa inaad finding sameysaa waa inaad wax qortaa waa inaad evidence sameysaa waa dad la dilay dad la waxeeyay dad la qalay waa in human rights representative ay soo baxaan dowladda state-ka markaas meesha degan ay u tagaan ay dhahaan evidence-gaan haynaa
waxaan ay dowladda iswaashaa ay dhahdaa ma rabno ama dowladda ay dhahda saas may sameeyeen waa in la kansalaa oo la xiraa saraakiishan waddankeena ku xiranaynaa then dismiss micnaha waa ka haraya laakiin haddii dowladda iswaasho oo uu ku dhamaado case-kaas ninka ugu sarreeyo then human rights waxay sameynayaan case ay qaadayaan international community ay u gudbinayaan then Hague iyo meelaha loogu talagalay geenayaan adiga 5-7 years waa soconaysaa evidence waxay sameynayaan dacwada heerkii soo martay baa dib loo baara beejka halkaasaan soo marnay intaan ka bilaabay waxyaalo badan aan qorqoraa anoo taxi fuula ma aha dowladda ku xeena ma aha marka sheekadu waxay tahay adoo shiinees ah adoo Soomaali madaxweynaha China dacweey Vietnam dacweeyo god damn it man get the fuck out aad u maasan tahay saaxiibay qaaliga aad iyo aad u maasan